kalfadhiga ay maanta yeesheen xildhibaanada golaha guurta jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka golaha guurta jamhuuriyadda Soomaaliland Yaasiin Jaamac Cali ayaa ay ka dhageysteen guddiga joogtada golaha guurta jamhuuriyadda Soomaaliland bixin howlqabadeedkii ay ka diyaariyeen intii goluhu fasax ahaa bixintan oo qoto dheer oo ka sheekeeyay xogayaha guddiga joogtada ah ee golaha guurta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u dhignayd sidan qodobka saaka ajendaha ugu horeeyay waxa weeye warbixintii guddiga joogtada warbixintoodii fadlan muddada u dhaxeeya kalfadhiyada golaha sida kalfadhigan 6-kontonaad ee dhamaaday iyo kalfadhigan 7-kontonaad ee imika inoo bilaabmaya sida kooxda xeeroosaadka golaha guurtida qodobkiisa 6aad guddi joogtadu iyo gudanaya howlaha shaqo waxay guddidu markii horeba ay galeen sida ay qodobadan u maraan iyagoo sameeyay inay la kulmaan mas'uuliyiinta ay ka midka yihiin wasaaradda wakaaladda biyaha laanta socdaalka jamhuuriyadda Soomaaliland banka Soomaaliland wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka wasaaradda beeraha kuwaasoo ka xog wareysteen waxqabadkoodii wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan muddadii ay jireen iyo wixii uu qabsoomay waxa uu qorshaysan mustaqbalka ugu horeyn wakaaladda biyaha Hargeysa oo ahayd waqtiga aanu la kulannay waqti magaalada ay biyeeraan aad ay ka jirtay cabasho badan oo dadweynaha ay soo gaadhay guddida jaraa'idada iyo saxaafadda laga maqlayay cabashada ka jirta dhinaca bulshada ee biyaha taasoo uu maareeyaha wakaaladda biyuhu xog waran u siiyay guddiga joogtada uu ku sheegay in isticmaal dhaafka ka jira biyaha iyo bulshada dadka ku dhaqan Soomaaliland ay tahay wakaaladda biyuhu waa halbowlaha caasimadda oo ay ku nool yihiin in ka badan 1,000 qof dhibaato ayaana dadka ka haysata biyaha 1 milyan oo qof in ka badan dhibaato ayaana ka haysata dadkaasi taasoo ah muddadii la aasaasay wakaaladda biyaha ee la soo geliyay ceelka biyaha biyageeda Shiinaha dadka ku nool tiradooda oo aan ka badnayn bariga 250,000 oo qof maantana ay tiradii 1 milyan iyo waxoogaa dhaaftay inay ismaan dhaaftahay inaan biyihii si siman aan dadkaasi u wada helin taasina ay keentay in mar walba ay cabasho ka timaado dhinaca biyaha waxa ay jirtaa in muddadan dambe intii reeyada biyaha helaysay lafteeda oo xumaaday deynaba weyn oo ka mid ah kuwii biyo soo saarka taasina ay keentay intii hore biyaha heli jirtayba inay cabasho badan ka muujiso biyaha dhammaan qorshayaasha biyaha lagaga howlgeliyay geedeeble taasi oo ay sameeyeen inay hay'adi ka caawinayso in beebab cusub la soo dhigo geedeeble laba beebab cusub kuwaasoo biyaha magaalada wax ku soo kordhin doona biyaraantana lagaga yareysan doono iyadoo ay jirto mashruuc kale oo waday kuweyd naga bixinaysay kaasoo xunba weynayo mashruuca laga waday mashruucaas oo loo baahnaa in shaqeeyo maantaba 2013 ballanqaadkiisuna ahaa inuu bilaabmo ilaa haddana caqabado yaryar oo ka horimi aan weli saari u wada socon balse iminka hawshiisii lagu jiro beebabkiisii iyo alaabtiisii iyo wixiisii shaqadii wado mustaqbalkana la rajaynayo in lagaga baxo biyaha baahidooda iyadoo la eegayay marka hore biyaha tayadooda iyo tabartooda habka beebabka la soo marinayo goobaha baraagaha laga dhigayo meelaha muranada ugu badan uu ka taagnaana ay ahaayeen meelaha balse murankiisa aad mooday imika inuu soo xillismayo goobihiina la isla meel dhigay meelaha ay noqonayaan insha Allah aan furayno guddiga biyaha magaalada inkastoo la wada gaarsiin karay bal haddana sidii ugu quruxda badnayd ee biyaha wuxuu loo gaarsiin lahaa cabashadana loo yareyn lahaa bal in wax laga sii daboolaha Ilaahay guddidu waxa kale oo la kulantay laanta socdaalka Soomaaliland taasoo muddadii aanu la kulannay ay jirtay hawshii lagu raafayay dadka soo galeetiga ee magaalada culayska ku haya taliyo wuxuu sheegay laanta in la aasaasay 1991 laguna aasaasay xeerka lambarkiisu yahay 27 ee soo baxay 95 xeerkaasoo wasaarad ahaan ay hoos tagaan leen minister wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka shaqeysaa ka warhaynta isku socodka gelidda iyo ka bixidda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay samaysaa dhaqaale ay soo saarto fiisayaasha iyo waxa ay ka soo saarto waxa kale oo qabataa hawlaha caafimaadka oo la socoto dhaqdhaqaaqa dadka caafimaadkooda soo galaya caafimaadkooda haduu yahay ay u eegaana warqadooda caafimaadka